kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey dagaalkii maanta ka dhacay magaalada doolow ee gobolka gado khasaaraha ka dhashay gacan ku haynta saldhigyadii ciidanka dowladda federaalk ee saddexda ahaa ee weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka Itoobiya iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada doolow shacabka magaalada doolow sida ay uga falceliyeen madaxweyne ku-xigeenkii Jubbaland Maxamuud Sayid iyo gudoomiyihii degmada doolow halka ay ku sugan yihiin iyo wararka sheegaya inay ka tallaabeen buundada doolow oo ay u gudbeen dhinaca doolow Itoobiya oo caawa ay ku dheelmadeen iyo sidoo kale xogihii ugu dambeeyey wararka ka soo baxaya dhinaca Jubbaland iyo jawaabta dowladda federaalka iyadana ka soo baxday iyo faahfaahinta ay ka bixiyeen dagaalkaasi iyo qaabka uu ku bilowday iyo sidoo kale wafdi culus oo dowladda federaalka Soomaaliya ay u dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya xilli magaalada doolowna ay ku dhex dagaalamayaan ciidanka Itoobiya iyo ciidanka Soomaaliya waan dul istaagi doonaa waxaan dhanka kale iyadana bulshada Soomaaliyeed ay si weyn isku weydiinaysaa waftiga dowladda federaalku ay dirtay muxuu salka ku hayaa maxay tahay sababta loo diray xilli waliba ciidanka Itoobiyaba ay weerar yihiin oo ciidankii Soomaaliyeed ay dhibaato ku hayaan oo ay madaafiic kula dhacayaan iyagoo waliba goobahoodii ku sugan iyadana arrintaas oo falcelin weyn ay ka dhalatay shacabka Soomaaliyeedna ay si weyn u hadalhayeen saacadihii la soo dhaafay waan dul istaagi doonaa dhinaca kale xagee ku dambeeyay heshiiskii dowladda federaalka iyo Soomaaliya iyo Itoobiya ee la xidhiidhay dhamaystirka ama dhamaynta xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo xal u helidda rabitaanka Itoobiya in ay hesho marinbiyood halkee ku dambeeyay iyadana waa faahfaahin ayaan idinka wadaa soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay horta wiilasheenii Soomaaliyeed ciidankii Soomaaliyeed ee ku sugnaa degmada doolow way cibaadaysteen maanta cibaada haddaad maqli jirteen raggaas baa horta cibaadaystay guul weyn oo taariikhi ah ayay u soo hoyeen ummadda Soomaaliyeed iyagoo weliba tira yar aan ka warqabin in weerar lagu soo yahay ayay madaafiicun aroortii ku waabaristeen nig guryahoodii lala dhacayo oo yaa la dhacaya ciidan Itoobiyaan oo ka waxa weeye ay soo barbariyeen Maxamuud Sayid iyo gudoomiyihii degmada yaa madaafiic ku bilaabay gig ayagana hobariiska dheen way iska caabiyeen dagaal culus bay la galeen wayaanadii socotay Itoobiyaanka socday afka intay ka galiyeen baaruuda ayay dib u cayriyeen waxay barbaraha bulshada soo galiyeen inay qabsadeen saldhigga ciidanka booliska Soomaaliyeed xeelad ciidan bay intay uga baxeen ciidankii booliska ayaa dhabar jabin lagu saabaa dhabarka laga wada joogto qadin laga galiyay arbay kala carreen saddexdii saldhig ee kala hay saldhigga ciidanka booliska saldhigga nabad sugidda iyo sirdoonka saldhigga militariga saddexdaba ciidanka Soomaaliyeed baa ku sugan oo caawa ku sugan Itoobiyaankii dib ay u carreen xeryahooda galeen iyagoo meydii dhaawac iyo xinjir wata oo waliba gaadiid dagaal laga gubay bay dib u carreen oo ay ku carreen xeryahooda caawana cabsi kaliya waxay ka cabsi qabaan in la miray ka cabsi qabaan Itoobiyaanka in la miray ka cabsi qabaan waxa aad iyo aad looga shakaysanayay caawa dhuuman doonaanba oo dhinaca doolow u gudbi doonaan dagaalku horta saas u dhacay guul weyn bay dhalinyarada keeneen dhaqdhaqaaq baa magaalada ka socda ciidanka dowladda goobahoodii bay ku sugan yihiin hawlahoodii shaqo ee ay ka wadeen degmada doolow ayayna gudanayaan warar hoose oo helayno ayaa sheegaya in Maxamuud Sayid madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo sidoo kale gudoomiyihii degmada doolow oo ayagu Itoobiyaankan hagayay oo daba socday inay caawa u carareen dhinaca doolow doolowda kale deegaanka Soomaalida buunta u dhaxaysa labada doolow in yar baa u dhaxayso badnayn oo gabadhidu wax yar daqiiqada gudahooda ay ku imaadaan marka labada doolow way saaran yihiin buuntadaas loo kala gooyaa doolowda marka dhinaca dowladda deegaanka Soomaalida ay caawa u gudbeen baa la yiri oo ay ku dheelmadeen Maxamuud Sayid iyo gudoomiyihii degmada doolow halkaas baa loola carray waxaa laga cabsaday in shacabka magaalada doolow iyo ciidanka dowladda oo ayagu istaageersan in weerar ay ku soo qaadaan oo caawa la miro xataa xiradii Itoobiyaanka way isku amiri waayeen way carreen doolow way caawa u gudbeen baa la yiri dhinaca kale dagaalkan maanta ayaa ku soo aadaya xilli dowladda federaalku ay wafdi heer sare u dirtay magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya wafdiga falcelin badan baa ka dhalatay shacabka Soomaaliyeedna saacadii la soo dhaafay si weyn ayay u hadalhayeen oo waxaa la isweydiinayaa
wafdigan dowladdu ay dirtay ay ku sheegtay taabagelinta iyo dhammaystirka heshiiskii ankara ma etoobiya wax doonaysay oo inay soomaaliya u imaato ahayd mise soomaaliya wax doonaysay oo etoobiya inay u tagtaan maxaase isku soo beegay wafdi dowladdu ay dirto iyo dagaal ciidanka etoobiya ay qaadaan maxay tahay sababtase ciidankan etoobiya ay weerarka u yihiin ciidankii dhalinyarada soomaaliyeed ay u laynayaan dowladdii federaalkana ay bad ula hoos ordayso waa arrimaha bulshada soomaaliyeed sida weyn ay isku weydiinayaan weeye wafdigan horta dowladdu ay dirtay waa khalad weyn gaf buu ku yahay midnimada ummadda soomaaliyeed gaf buu ku yahay wadajirka ummadda soomaaliyeed gaf buu ku yahay qarannimada soomaaliyeed waa gabidhac siyaasadeed iyo ceeb weyn oo ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay weye maxaa sabab u ah etoobiya wax doonayse waxay ahayd in wafdiga etoobiya ay imaadaan magaalada muqdisho lagu wada hadlo waxa wax doonaya waa etoobiya soomaaliya ma aha waxa wax rabta eele badda soomaaliya qayb iga jara waa etoobiya maxaa laga doonayaa waa ayaan daro ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay qaranna maanta laguma tilmaami karo ninkaas maanta jooga meeshii xasan sheekh maxamuud la yidhaahdo madaxweyne laguma tilmaami karo qarankeenina god buu ku dhaca la dhihi karaa run ahaantii waa ayaan daro inteeda leg waxay ahayd haddii xataa etoobiya heshiis lala gelayo ama laga wada hadlayo maadaama iyadoo ay wax rabto inay muqdisho imaataa la rabay inay iyadu soo baxdaa la rabay inay iyadu imaato magaalada muqdisho wafdi soo dirsadaan baa la rabay oo halkaa lagu wada hadlo ama dalka dibaddiisa lagu wada hadlo ma ahayn in dowladdu intay wafdi dirto la yidhaahdo waxay dhammaystirayaan rabitaankii etoobiya ee badda heshiiskay dhammaystirayaan bal ayaan daradeed bal waxaas feeri ma waxaas hadda dowlad dhihi karnaa ma waxaas hadda siyaasiyiin ku tilmaami karnaa ma waxaasan hadda taageeri karnaa ummadda soomaaliyeed ay wax ka sugi kartaa wax laga sugi kara maaha taa marka waa ceeb weyn dhinaca kaleeto waftigan ayaa ku soo aadaya xilli ciidanka etoobiyana ay dhalinyaradii soomaaliyeed ku weerarayaan xeryahoodii oo madaxa weliba ay ka wada togaan oo madaafiic la dhacayaan dowladda federaalku waxaa la rabay inay tiraahdo etoobiya way ka baxday heshiiskii ciidankeedii baaba dagaal nagula jira wax heshiis oon etoobiya geli karna ma jira ciidankeedu hanaga baxaan inay tirahdaa la rabay ma aysan dhihin fiqi baa intuu soo istaago warqad soo turaa wuxuu yidhi waa lagu xisaabtami doonaa cawaaqib xumaa laga kulmi doonaa filaan baa la samayn doonaa waxaasaa la samayn doonaa maxay tarahdeen waa xilli wax walba loo ogolaaday etoobiya bad baa lagu siin la yidhi ciidankeedina ay ka dhex dagaalamayaan gudaha soomaliya oo ciidankii dowladda federaalk ee soomaaliyeed ay la dagaalamayaan wiilashii soomaaliyeed ay la dagaalamayaan weye waa ayaan daro iyadana ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay shacabka soomaaliyeed waxaan leeahay war waxa wax la dhowran kara meehe waxa dhacay ceeb ka badane ciidankaa soomaaliyeed meelay joogaan ba hala garab istaago madax dowladeed iyadoo oo la sheegaayi ma jiro siyaasiyiin la sheegaayi maanta ma jire ciidankaa soomaaliyeed wiilashaa soomaaliyeed wiilasheeni weeye yaan laynaga laynine ee astaanta qaranka huwisan ha la taageero kuwaasaa taageero maanta iska taageeraynaa mooyeene xukuumad la taageeraayi ma jirto xukuumad la taageeraayi taasi waa midda shacabka gobolka gado gaar ahaan weliba magaalada doolow waxaan leehay maxamuud sayid iyo ninka la yidhahdo guddoomiyaha doolow ee u adeegaya axmed madoobe aanu ila dhashay wax loo adeega ma aha wax la taageero ma aha horumar ma soo wado waxba laga rajayn mahayo waa ninkaa shalay magaalada kismaayo lahaa mayd baan la soo galay iyo dhaawac mayd iyo dhaawac anoo wato baana kala bixi karaa mooyeene xukunkan cidaan u dhiibaya ma jira ninkii shalay lahaa wey idinku soo reer jubbaland ma tahdiina idinka reegadaa soo reer jubbaland ma tahdiina mareexaan baa weliba la hadlayaa war soo reer jubbaland ma tahdiina soo xaquma lahdiina kursiga inaad qabataan maxaa idin diiday inaad kursiga idinku doonataan ood qabataan maxaadse ku taageeraysaan nin inale aniga maydun baa lagaga qaadaya meelna aan u soconin maxaad ku taageeraysaan nimanka qoolaysatadee lasoo diray labada ee meesha jooga iska qabta amnigiina yaysan ku khamaarin nabadiina yaysan ku ciyaarin maatidiina yaysan ku kor dagaalamin etoobiya waxba inay qaban mayso etoobiya waxay raadinayso waa dhul soomaaliyeed waa inaan xaqiiqda ka wada hadallo weye inaan xaqiiqda ka wada hadallo qabiil xagga inooga dhiga xaqiiqda inaan ka wada hadallo weeye etoobiya dhul bay rabtaa gobolka gado qayb ma u goynaysaan ma u jaraysaan gobolka gado inay qayb goosatay rabtaaye ma u ogashihin haddiina u ogolayn oo su-aashu ay maya tahay oo dhul soomaaliyeed xabashihiina hadda siinaynin 2025 siinaynin aan iska qabana maxamuud sayid iyo ninkaa kale waa rag lasoo dirsaday waa adeegayaal
weligood bayna dhici jirtay adeege socda oo waxa weeye cadow u shaqeeya weligeed baa adduunka soo jiray aan iska qabanno dhasheena ayaa lagu kor dagaalamin caruurteena ayaa lagu kor dagaalamin amnigeena iyo ganacsigeena ayaa la burburinin wiilasheena Soomaaliyeed ee doolow marka horeba aan dhibaato ku haynin amnigiisa sugayay waxa weeye astaanta qaranka hubisan ee deegaanka u dhashay yaan hortiina maanta lagu laayay maalin kale hortiina lagu laayay kaca qoriga qaata guryaha iniga buuxaare oo iska celiya waa jihaad baan dhigi karnaa jihaad weeye ciidanka Itoobiya in la dagaalamo waa jihaad sababtoo ah xadkii bay soo gooyeen oo xuduudii bay soo jareen oo shuruucdii bay ka bixeen oo dulmi bay wadaan aynu iska celino